بسم الله الرحمن الرحيم قدومي كحيينك كواد بارلمانكا قولها حكومة iyo قولها بارلمانكا السمادة عقاشة سياسيين ترير بنتلان aqoon-yahanka waxgaradka kale ee halka fadhiya dhammaantiin qaybaha kala duwan ee saxaafadda iyo cid walba halka fadhiya ciidamadaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii iyo haweenka oo halka iga muuqda ruuxadooda runtii farxad weyn ayay maanta inoo tahay haddii aan nahay mas-uuliyiinta dowladda Puntland labadiisa gole inaan maanta qardho iyo gobolka Karkaar aan halka ku wada qadaynayno oo wada fadhino maalmahaana wada joognay marka ugu horeysa waxaan si gaar ah uga mahadcelinayaa xildhibaanada faraha badan ee halka jooga ee runtii magaalada qardho iyo anigaba halka nagu soo booqday aan ku shaqaynaynay waxay mudan yihiin runtii in aan xuso dhowrkii bari aan shaqada u joognay magaalada qardho runtii waxaan u kuurgalaynay howlaha guud ee ka socda waxaan fursad u helnay maamulka qaybihiisa kala duwan ee halka jooga waxaan rajaynayaa inta dhiman aan joogno bulshada qaybaheeda kala duwan intii aan ka gaarno inaan iyagana aragno walow aan filaayo baahiyahooda inay isku eg yihiin intooda badan aan ka warqabno xaqiiq waxa ah Puntland inay nabad iyo xasilooni ay ka jirto waxa cadeyn u ah meeshaan halka joogno iyo shalay meeshii aan joogno iyo xalay oo aan sheerbi joogno intaba bulshadeena iyo annagaba si nabadgelyo ah ayaan isu wareysanayno isu dhex joognay taa ilaahay inoogu mahadnaqay baahanta nabadaas iyo xasiloonidaas cayaar kuma imaan bulshada qaybaheeda kala duwan khaasatan hoggaankeeda midka dhaqan iyo kan siyaasadeed ayaa mar walba hareer taagan iyo kiisa ciidan Puntland waxay ku dhisan tahay sharci waxay ku dhisan tahay qaanuun iyo kala dambeyn waxaan nasiibkaas
ay la sameeyey darteed baan annaguna maanta xukunka ku joognaa haddii ilaahay idnu kuna sii joogi doonaa cidda naga dambaysana ay kusii wadi doontaa waa xaqiiq waayadan dambe duufaano inay jiraan siyaasadeed oo dhaqanka puntland aada moodid inuu xoogaa ku cusub yahay dhaqanka puntland dadkiisu badanaa khaasatan dadka dhaqan ahaan hoggaankooda siyaasadood ayay arrimaha siyaasadda uga dambeyn jiray laakiin waayadan dambe waxaa aada u batay social mediaha waa casriga keenaya iyo duruufaha waxaa iska adag mararka qaarkood haddaa adigu wax saameyn weydo oo adigu wax gudbin weydo in wax lagu soo gudbiyo waa iska dhici karta marka dhaqamo mararka qaarkood aan puntland u habboonayn way dhacdhacaan laakiin waxaan rajaynayaa dadka reer puntland oo lagu yaqaano wax kastoo ay sameeyaan markay arkaan inay wax khaldan yihiin waa dad geesiyaala go-aan kaley qaataan markay arkaan go-aankaas inuu go-aankii ay loo baahnaa inuusan ahayn waxaan maanta inay caddaynayaa degaan kasta oo puntland ka jira oo mararka qaarkood si aan ula kac ah oo dad kale ka shaqaynayeen loo geliyey in ay maanta in badan ay ka tanaasushay su-aasha beesha taalla waxa weeye waxa aada loogu celiyaa federaalka waxa nooga maqan haddaad tirahdo waxa nooga maqan maxay yihiin sheeg qofku ma garan karo dowladda federaalka ani waxaana soo ahaa wasiirkeeda qorshaynta waxa meesha yaalla oo noga maqnaan karo horta waan garanayaa laakiin xaqiiqda waxa yaalla oo dadku malaynayaan mashaariic maaha wax meesha yaalla dowladda soomaaliya waxay ku jirtaa wax la yidhaahdo geedi socod siyaasadeed dowladdu wiil ma caga dhigan soomaaliyeed geedi socodka siyaasadeed ma aha wax laysi siiyo geedi socodka siyaasadeed waxaa la rabaa inaad qeyb ka nahaano haddaan reer puntland nahay geedi socodka siyaasadeed waa xisaabtanka waxaan ka rabaa beelaha reer puntland markay dhexdeenna aan ka xisaabtanayno waad garanaysaan saa u xisaabtantaan reer walba suu xisaabtamo sooma yaqaano xisaabtankaasoo kale way waxa naga maqan horta marka waxa aan sheegayno waa waxa markaa ii timaadaan aad sheegaysaan oo kale horta taa inaa ogaataan aad rabaa markaa ii timaadaan waa ila xisaabtamaysaan jagooyin baa weydiinaysaan waxbaa ay weydiinaysaan anna haddaa ay doorateen xisaab baa inoogu maqanay horta marka xoolo la yidhaahdo idinkaaba hadda xoolo ururinaya koonfur wada soo ma xaggaas aniga hadda xoolo ugu dudi maayo iyagaa dhiban weli waan jeclaan lahaa inaan mar walba xukuumad ahaan iyo shacab ahaan dadkeena walaalahay koonfurta jira aan dhibka qaad waana kala qaadayaa nidaamka siyaasiga ah iyo shacabka haddii dowladda dhexe loo haysto koonfurta soomaaliya taasna waa khalad dowladda federaalka waa dowlad annaguba qeyb aan ka midnahay waa 4.5 soo maha habqaybsi baa lagu joogaa marka hadba hoggaanka jooga iyo puntland baa wada xisaabtamaya maxay u wada xisaabtamayaan waxay u xisaabtamayaan puntland waa meeshii ay ka dhalatay midnimada soomaaliyed in la ilaaliyo oo puntland lagu aasaasay oo maanta sool iyo sanaag aan ugu mintidayno inay iyo dadka deegaankan inay mid ahaadaan qodobkaa keliya midnimadii adkeeyey horta midnimada soomaliya hadda lagu celcelinayo puntland in la dhisay ayaa midnimada adkaysay waan hubaa wixii waqooyi bari la dhihi jiray haddii aan lahayn midnimo soomaaliyeed maanta lama arkeen xaqiiq jirta wey waan uga intii dhimatayna waa ugu duceynaynaa ilahay u naxariisto intii noolna waa uga mahad celinaynaa fikirkaas dadkii aadka uga shaqeeyey reer qardhoodku siyaasiyiintiisa xooggiisa rag baa halkay la fadhiya dadkii diidanaa baan ka mid ahayn soo ma ahayn durbadiiba markay arkeen inay fikirkaas uu ka saxsan yahay dadkii ugu badnaa oo garab istaagga saaray bay marka waxaan u baahannaha fikirkii midnimada ah in lagu adkeeyo waxay u baahan tahay in dhulka puntland midnimadiisa la adkeeyo fikirka labaad wuxuu ahaa fikirka federalismka oo dalku inuu federaal noqdo hadduusan maanta federaal ahayn sidii axmed jaamacni lagu soo bedelay sideetameeyadii baa mid kale inay imaan lahaa hadda oo aan warbahayn kaas nin ahelaaba u dambeeye khatarteedayna leedahay waxaa la rabaa dadku inuu iyagu isxukumaan nidaamka federaalka waxaa la yidhahdaa waa inay dadku iyagu isxukumaan annagu hadda puntland ismaamul baan ka shaqaynayna dadkeennu inuu ismaamulo oo kala dambeeyo dhaqan iyo siyaasiyanba taa in la adkeeyo waxay u baahan tahay 21 sano waxaan ka shaqaynaynay ma cidlaan uga dhaqaaqnaa mise waa sii haynaa maanta idinka aynu weydiinayaa ma haynaynaa inay u garab istaagtaan aan raba marka inaan hayo ya ciddii diidan inaan kaa hayo waxaan rabaa meel in lagu soo wada jeesto
anigu xisaabtan baan meel la fadhinaya idinkaan inugu matalaya haddaad rabtaan inaan wixii dhowr jeer baa wax lay sheegay haddaad rabtaan sidaas inaan iska yeelo hadda waa la kari karaa ruuxadeeda waxaan rajaynayaa oon runtii ka mahad celinayaa soo dhoweyntii ballaarnayd iyo aniga iyo wafdigayga loo sameeyey waxaan runtii jeclahay mahad celintaas kadib inaan reer karkaar iyo qardho aan idhaahdo hawshu geedigu weli ma fadhiisan weli waa hogadi miya howlka badaalo weli waa hogadi bahashu weli ma caga dhigan idinku siyaasiyiin baa tihiin oo horta marna inagama aana maqal maxaa qabateen oo si fiican baad u garanaysaan inta aan joognay kuwo kaleana yidhahda maxaa qabateen oo goormaa wax qabanaa horta ya saasay tahay waa istiilaynaa waad aragtaano waxaan rabnaa inta aan carcarta qabno oo weli aanan daalin inaan waxaan rabnaa wax badan jarno masaafo badan jarno maxaa yeelay marka ayaama sii joogto culays kugu bato waxaa dhici karta waxyaabo badan waxaa hadda socda marka waxa weeye orodkeennaa bato kuwaa raba inay lugahana qabtaan saan u maleeyay wax kale maaha marka saasaase fiican oo dadka haddii uu usoo bambaxo inuu hoggaan siyaasadeed qabto oo ay macnaheeduna tahay in dadka la hogaamiyo wax loo qabto haddee wax kaluu ka shaqaynaya male marka shaqadeenna iska daalimayna haddii ilaahayno waxaan rajaynaynaa haddii ilaahaydan ka dhigo rag culus oo xildhibaano iyo wasiiro iyo sharci yaqaano iyo la taliyaal iyo bulshada siyaasadda iyo waxgaradka oo dhan oo dowladda ka wada shaqaynaya waa ay ku filan yihiin puntland geedi socodka siyaasadeeda socda inay qaybtooda ka qaataan waxaa haddaad weydiisaan ay markhaanti ka kacayaan arrimaha ku saabsan geedi socodka siyaasadeed mustaqbalka xukuumadda gaaru ma aha waxaa iskale xukuumadda iyo baarlamaanka dowladda xataa gaaru maaha dadka markaas aan xubnaha dowladda ka mid ahayn ee aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta iyo ururada bulshada iyo kuwa maaragtay qaybahoodaba kala duwan intaba waa la wadaagnaa maxaa yeelay waa wax annagoo dhanna wada taabanaya oo la rabo in laga wada qayb qaato waxaan rajaynayaa hawl aanan puntland wax loogu tarayn ogaan la-aan yaan looga shaqayn dadka qaybtiisa fariintaasaan faraya howlaha qaybtood oo hadda meediyaha ka socda iyo meelahaas waa nin maqan oo ku dhahay ani howl ii qabo goormaa dadkaani contract goorma dhaqan lagu yaqaaniba maaha in lagu yidhaahdo gurigaaga howl duminaysa iga qabo oo lacag baan kuusoo dirayaa caqli cusub waaye laakiin daalkaa dadka ka bataa dhici karto hungurigana waa isaga baahan yahay laakiin waxay la tahay kolla reer qardhood waxaa laguma xaman jirin ma ka malaynayo laakiin degaanada kale xataa waa fariintaan u diraya waxaan rajaynayaa in aada loo adkeeyo midnimada iyo wadajirka puntland kaasaana wada deeqa dowlad khalad waa ay yeelanaysaa waxaan diyaar u nahay oo marar badan ku celinaa wixii aan ku khaldannahay inna laga qabto fikirka iyo talada aan hayno mid ka fiican ninka hay inuu noo soo gudbiyo wanaagga aan qabanaynana in lagu dhiirigeliyo na lagu gacan siiyo waan rajaynayaa kalsoonida badan ee baarlamaanka aan ku qabo oo maanta indhihiinu ay markhaantiga ka yihiin waxay i gelinaysaa xawaarihi aan ku socdo mid ka badan inaan ku socdo haddaan dheereeyo macnaheeda maaha inaan iga tegay waa ina ogahay ha baqinina marka haddaan xagga iyo xaggan ii dhaafay howl guud baan u socday inima dhaafin laakiin waxaan rajaynayaa hawsha aan ku maqanahay oo puntland ah aniga hawsha puntland baa ii dirteen tan gobolka rag kalaa iska leh marka midda puntland oon hayo waxaan rabaa inaad igu gacan siisaan waxa uu gobol walba uu mudan yahayna insha allah wuu heli doonaa haddii ilaahayno waxa ugu wanaagsanayd baad haysataan gobol karkaar oo ah amni ilaahay nii siyaadiyo meelo inaga daran baa jira dowladdu hadda indhaha waxay saaraysaa oo shaqada ugu badan ay qabanaysa waxa waaye shaqada amniga maxaa yeelay cadow xun
oo noociisa aan hore loo arag oo argagixisa ah waa dhulkeenu ku dhex jirta oo u baahan dadka in laga qabto dhinaca kalena waad ogtihiin oo Somaliland baa dhul ballaarsi ku socota intaasoo howlood waa howlaha ahmiyadda koowaad dawladda u leh howlaha ahmiyadda labaad u leh waxa weeye dadka xooggiisa waxa haysta waa dhaqaal xumo inaan dhaqaalaha kobcino waxaan uga mahad celinayaa abwaan qabatalow dhowrkii eray uu sheegay waxaan moodaa gabayga inuu ballaaran yahay marka inaa badi hadduu yar yahana sii badi oo dadka u sheeg siyaasadda dawladdan waxaa ka mid a dadku inay shaqaystaan inaan dadka lacag u qaybino ma rabno dadku inay shaqaystaan oo goobaha wax soo saarka loo noqdo waxaan aada ugu mahad celinayaa dad fara badan oo reer magaaladaana oo reer magaal ahaan jiray oo miyigi ku noqdo xoolo abuuray miyigu waayo dhexdaas waxaa socota meel lagu haray inay taho ha laga soo galan lahaa laakiin wax soo saarka keliya aan leenahay waa miyi hadda gacanta ku hayno kii badda iska daa haddee waad aragtaanoo marti baan uga nahay badda buurihii aan macdanta dadku ka manaafacaansan lahaana nimankii ragga ahaa waxbay ku ogaayeenoo baa dul degan intaan ka saarayno iyadan culays baa naga haysta marka waxaan rajaynayaa wax soo saarka in la ilaaliyo wax soo saarka in la ilaaliyo waxa ugu muhiimsan waxa waye deegaanka in la ilaaliyo gobol karkaar madaxdiisana waa furaya dadkiisana waan ka codsanaynaa in gacan lagu siiyo la dagaalanka dadka dhuxusha shidaaya annaga dawlad ahaanna waxaana laga rabaa inaan dadka u keedno wixii badiil u noqon lahaa oo ah in la kobciyo shidashada gaaska waa fiicnayd inaan meel kale kaga hadlo laakiin hadda maadaama aan degaan ka hadlayo wasaaradda maaliyadda waxaan ka codsanayaa gaaska wax lagu karsado in cashuur dhaaf laga dhigo dhammaantiis maxaa yeelay waa ogahayo waa dhibaysaa wasiirka maaliyadda oo lacag baa ka baaqanaysa laakiin fursadda waa ku siinaynaa miisaaniyadda dib u fiiri dadka dhirta yaa la jarin keliya hadda maxay wax ku karsanaan waa su-aasha waxay wax ku karsadaan baa la rabaa marka waxay u baahan yihiin in xal la helo laakiin kuwa shaqada ka dhiganaya hadda dhirta qallasho keliya lama jaro waxaa lay sheegayay isku shuban inay ka bilaabatay dhir jarid weliba geedihi canjaalka muddada dheer jiri jiray in hadda jiradii laga jarayo hadde reer isku shubanka dhirtooda waa aasin jireene kuwa karkaar ka tegin yihiin umayna kuwa jaraya ya marka dhaqankaas dhuxul waxaan u malaynayaa xataa mushkiladan hadda dhahar iyo qarro laga sheekeynayo iyada ruuxadeeda inay waxyaabo ka mida salka ku haysaan filaya soo maa waxaa la jaraya dhul salka haysa marka aafo badan bay noo keenaysaa arrintaas waxaa la rabaa in la iska wacyigeliyo gogosha nabadda ee qardhe aad dhigteen waa inaga mahad celinayaa dawlad ahaan xaggana waan ka soo sheegnay intana waan ka sheegaynaa dawladdu waxbay inala ogaanaysaa marka aad wada hadlaysaan wixii inaga taf dheeraadana waxbay ka qabanaysaan laakiin waxaan rajaynayaa arrintaas in lasoo afjaro wixii sababeen aan loo noqon iyadana lasoo afjaro iyadana aad baan insha allah inigu boorinayaa runtii intii maanta kasoo qayb gashay kulankan waan uga mahad celinayaa kulankan taariikhiga ah oo quruxda badan waxaan inii sheegaynaa haddii ilaah idmo oo kalsooni buuxda ku qabi doontaan waxa aan ka shaqaynayno inay tihiin dantiinna dantiinna ma noqon karto inaan mar walba intaan ii nimaano kulligiin inii wada sheegno dowladnimadu waa intaas dowladnimadu waxay leedahay heerar iyo macluumaad kasta meel ay ku kooban buu leeyahay iyo mid dadka la wadaago marka waxa aan dhammaan oo hawshooda la wado in liila sheego macno samayn mayso laakiin waxaad ogaataan waxyaabaha federaalku sheegaya waa wax ka duwan waxaas marka waxaan rajaynayaa federaalku annaga ah cid gaara ma ah laakiin madaxda hadda joogta ee federaalka ah waa wax kale macnuhu marka waxaan rajaynayaa safarkii aan Jubbaland ku aaday dadka reer Puntland oo dhan waa soo dhaweyn soo idinku miidin soo dhaweyn federaalka taasa isku hayno waxay dheen ha aadinin horta hadda mid kamid ah rabtid ya marka inaan aadin iyo inaan aado kala fiicnayd hadda waxa aad dareenkiina aan ugu hogaaminaa waa ogahay inaad taa rabteen marka go'aan aan dantiina hayn anama qaadan doona hadii ilaahay waa mahadsantihiin